taliyaha militariga Mareykanka ee taliska Africom General Steve Townsend ayaa khamiistii u sheegay golaha sanadka Mareykanka in walwalka ugu badan ee haatan ka jira Soomaaliya aanu ahayn al-shabaab laakiin uu yahay deganaan la'aanta siyaasadeed ee aan xallin karin caqabadahaas ayuu sheegay kuwa ka dhex aloosan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ee aan lahayn tanaasulka kuwaas oo salka ku haya kordhinta muddaxileedka madaxweynaha oo uu ku sheegay inay ka baxsan tahay dastuurka Soomaaliya. saameynta ugu weyn ee amniga Soomaaliya haatan ma aha al-shabaab, waa xasarada siyaasadeed ee ka dhex taagan dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada. muddo kororsiga ka baxsan dastuurka ee xilka madaxweynaha, taasi waa caqabadeena ugu weyn sida aan filayo hadda, ayuu yiri General Townsend. Generaalkan ayaa sidoo kale sheegay in go'aanka maamulkii Trump ee ku aadan kasoo saaristii ciidamada Mareykanka ee joogay Soomaaliya uu abuuray caqabado hor leh oo ku aadan la dagaalanka argagixisada al-shabaab. lama dafiri karo in ka saaridda ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya ay abuurtay jahwareer iyo khatar hor leh. fahamkeena waxa ka dhacaya Soomaaliya hadda waa ka yar yahay sida markii aan gudaha joognay, ayuu hadalkiisa ku daray.